أنا أديك كات كحي حجابكي إسكوسيتيس كان كوي ما أنا وحدة فنانة صحيرين أصلاً كده يسوق معايا إسككي إلي فيريا يرد على الجلا دكان كده قف على طويلة سقنا ويقيلن هيك ويقعد ما يصندق لهين دكان قف كسو استاجو بب عادي إنها أقول فناه سو استاج عندها سكن إيجومين قادن إنها أقول كديجو يا أنا هلي كرويلي بإنها هالكاس كاجي استاج naagaha waxa soo haray aan caleynaayo naagaha aan caleynaayo soo haray naaga istagaashay boosiyada ma banaana way banaantiin Sooma ah balansada tan ku dhigay to ka darna idin ku dhigaya halkaas oo ka baxay asxaabteeda aniga dib ma jecli social media 2015 kila hada ku jira 2 sano naagtaas u samraaya wax la hadlay ma jiro marka aniga wax ku soo simaanta aan u tagay oon xilka kula kor asxaabe صباح وناكسن سيديتهن أنا الحمد لله واف سماذا إيوا بريستي dadka isoo wada waxay ama ay qabsaday aad anigu ma hadcelnaya de waxa weeyaan qof walba waxaan aqshay dhaan baa wato wixii ga dhacay dhaan iga riday waa run qof culus baan xakiina ka ahaa laakiin waxa waaye waa iska dabaqsaday qof xanaaqan wax walba ku soo toogo عيل قاري عيل بأسكو كي قاري لكن إن شاء الله حرجينا يا مردم بإنا سندعي دونن إنان سناب شات كيغا فالدم بأو فولحن أم وحدة بأو خلدنا نسوكرنا وإذا كرها لقلنا دادكي مدة بإيقو حرنا دادكي أنيقا حتى إبرتا إفلو قرية ما بلها الليو لكن دادكي مدة إيقو حرنا إي أقانا وحي أيان قشو إيقودو هذا نيقرها لقلنا إن شاء الله مردم برمد عيسو muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay booliiska dalka Kenya ayaa baadi goobaya 5 ruux oo ay ka mid tahay gabadhan aad arkaysaan oo baraha bulshada ku joogta magaca ayaan dhalad kadib markii sida booliisku uu sheegayo ay heleen muuqaal muujinaya iyadoo gabar kale oo Soomaaliyeed si xun u jirdilaysa booliiska xaafadda Islii ayaa sheegay in muuqaalka uu soo gaarsiiyay qof la socday gabadha weerarka geysatay kaasoo markii uu weerarku dhamaaday uu ku leexday laanta booliska isla markaana gacanta ka saaray muuqaalkii iyo warbixin buuxda iyo sida ay dhacdadu u dhacday boolisku waxa kale uu sheegay in muuqaalka ay heleen uu muujinayo ayaan oo dusha kaga fadhida gabar kale oo magaceeda lagu sheegay Najmo DDS iyadoo si naxariis darahna u jirdilaysa Najma ayaa haatan isbitaalka Nairobi lagaga daweynayaa dakharadii ka soo gaaray madaxa iyo wajiga booliska Islii ayaa sheegay in laanta dambi baarista ay la wareegtay keyskan isla markaana ay sameynayso baaritaan si cadaalada loo horgeeyo kuwii falkan ka dambeeyay wararku waxa ay sheegayaan in haatan la baadi goobayo 5 ruux oo ay ku jirto ayaan kuwaasi oo la sheegay inay dhuumaalaysi ku jiraan hal qof ayaa boolisku ay sheegeen in ay jeelka dhigeen falkan waxa la sheegay in uusan u baahnayn marqaati badan maxaa yeelay ayaan oo falka geysatay ayaa barteeda TikTok ku soo bandhigtay iyadoo jirdilaysa Najmo داود جدا الاستقالة جري والاستقراع جري والاستمي جري أنا قلنا ولا المعنى عرض ميلا كل جدي دا عادة تام هذا نضوك فقيا نوصل دوبتي وبره دا عبر تسمع وين الجميل مين وتحسين عسى يسمع هاين دعوة يا إلا ما دنتو يا إيجي يا فرت بالله توري بندو ذا كذا جرينا توري نيو أودن محما أنت صوّدت المعذرة صوّدت نمان إيه ناقو أنت صوّدت أو قبض اللولد أو كوكر لغا ساري أيالي ذكاء ديكور وح أي كدري سنة وح كلمة وهل كان أيان دالذي أنت قدمو إيمانك الله كاقاضو قبض إنا ديرتا محا كدش إيمان ما كدش هل كاسو دما أيان دالذي إيمانك الله كاقاضو داد متهيد وح داد محم بات هاي waxa ay ku dishay waxa waaye gabadhan dukaan bay furatay customer badan bay yeelatay dadkii oo dhan baa ku soo jabay ayaan dad wax ka gato iyo wax soo salaamo iyo wax soo agstaagi weeyay waxay gabadhaas ku dilayso waa maseer ala faalo cunaa wixii aan ku jiraa la calaaliya ayaan dhaladay dadka halkaas loo madilo iimaanka la ka qaadi ruuxa maxay ahaydniyo kaasay waxay ku leedahay agtii joogsan weyda wallahi maanta adaa ceeb la kulantay
ina adeerta tii adiga dhiig ku xigto waxaas ku sameynaysid iyo kuwa jaa'ifada oo hoosta ka jiro gabadha war wuxuu xaas sida maanta muxsin loo garaacay umba jaabirna loo garaacay xamsana loo garaacay adigana anaa kugu filan ayaanay xamdina dadku ku filan waa la og yahay aniga maanta anoo dukaankayga joogaa video iga soo dubtad adugu cadeen iskaga samaysay laakiin waxaad ogaataa aniga videoyadan adiga ka duubi doono inay gadaal yihiin